haweeneydan waxay imaanaysaa photographer-ka iyadoo rabta weliba in laga qaado sawir qurux badan laakiin cameraman-ka wuxuu ku dhahay marabta inaan ku yareeyo aan ku qurxiyo laakiin iyadoo ku dhul cadeynaysaa kadibna ay soo bixaysaa weliba iyadoo yar wayna soo cararaysaa weliba si xawli ay u soo cararaysaa waxayna soo bursanaysaa baskaani travelkan oo layaabay qoftaan sidaan u soo cararaysaa uu joojinaya gaariga markay soo raacdana dhammaan dadku ay firfiirinayaan wayna ku dhul cadeynayaan nin waliba wuxuu bilaabayaa duqdii miskiinta ahayd inuu foodeeyo iyadan way yaabanta waxay isleedahay dadka maxaa ku dhacay markaas wajigeeda ka harkaysa oo kiyaalahan wayna isla yaabaysaa maxaa qaldan isdheeysa xariifkan xumlay asigan in la shumin rabo markaas duqdu waxay fahmaysaa in ay soo yaraatay qurux badnaatayna kaamiradiina waa kaamira aad u fiican sidoo kale waxay fahmaysaa u malaynaysaa inay tahay waxaan riyo aysan ahayn xaqiiq markaas ay gabadhii u soo laabanaysaa meesha photographer weenadan weydiinaysaa waxay ku leedahay photographer meeshan ku yaala waxaa loo sheegay laakiin meeshan wiligeed bin laga sameeyay meel photographer ah duqdii weynaha weena yaabaysaa maxaa qaldan isleedahay soo bixaysaa dhamaanaysaa xaafadeeda markaas telefoonka waxay fiirinaysaa message call ay soo aan familigeeda laakiin qofna ma uusan soo wicin habeenkiina sidaas ay ku seexanaysaa markay soo kacdana waxba ma qaldan wax walba waa iska caadi weyn yaabanta qoftaan waxa qaldan hadaba ogow qoftaan waxay joogtaa meesha lagu xanaaneeyo duqyaalka ay fiirinaysaa duqaan weyn isgadgaadi jireen sababtoo dharkay bedeli jirtay oo naxariisan jirtay duqdii mar waxay dareemaysaa noloshan ku adkaatay marna waxay dareemaysaa noloshan markal jaanis ay siisay konton sano kahor Liisa waxay lahayd uur ninkeeduna uu ka tagay weliba isagoo tagay meesha lagu qodo dahabiyada akhbaarta loo soo dirna waxay ninkeeduna ku geeriyooday shil dib markay dhacday arrintaasi Liisa wax walba oo nolosheeda ku saabsan ayadoo kaliya ay qabsan jirtay hawsheedina qabato marna inay karsato cuntadeeda marna ay soo shaqeysato ilaa ay ka dhasho wiilkeeda Liisa cunugeedaba markaan wuxuu ku soo koray nolol aad iyo aad xanuun u ah rafaadna u ah ilaa ay ka dhigtay wiilkeeda professor weyn waana midkan aad u jeedo iyadana ilaa ay ka gaartay 70 sano waxay ka shaqeynaysay cafeteria-gan aad u jeedaan Liisa maadaama ay ku soo kortay nolol aad iyo aad u adag waxay samaystay maqaaxadaani qof walba waxay sameyn jirtay la dagaal jirtay qofna maysan ka ogolaan jirin naxariis iyo jaxanja nina waa gabadha ay u tahay sodoohda labadoodana mar walba is dagaalameen isku khalkhaleen kan waa wiilka ay u tahay ayada mar walba wuxuu roo ay usmeynaysaa weena siinaysa wiilka weydiisana haleysa ka fikiraysid mustaqbalka wiilkaaga waxbarashadiisa duqdan waxay dhasatay saxaba ka amgan iska daa adiga daqiiqad kadib gabadhii sodoohda ay doodnahay laga qabanay isbitaalkan la soo qaada la saaraya markay jiifka soo kacdo hadal ku wareey sheegay waxay tahay sodoohdeeda guriga ha ka tagto kaysay Liisa wiilkeedii caruurtiisa waxay go'aansanay inay wadaan geeyaan meesha lagu xanaaneeyo ayelada marka la wiilka iyadu taa ku soo horjeesanay hadalkooda laakiin ayada hadal walba eray oo maqlaysa kaligeeda banaanka soo bixaysa weyn iska ilmeynaysa waliba ayadoo lagu murugaysa waxay ku sameeyaan caruurteeda markaas ay xasuusanaysa dhalinyarnimadeeda dunaabogeed markii waxay tagtay photographer soo ay la soo qaaday weyn soo yaraato weyn soo qurux badnaatay waatan qoftaani waxa dib loo soo celiyay 20 sano kan Liisa waxay go'aansatay kaliya inay u noolaato nolosheeda qofna aysan u noolaanin timaha qaabkay rabtay u jiran jirtay dharkana nooc ay jecesha ay gashan jirtay dib ay soo carar jirtay wadooyinka inay ku baashaal jirtay markay yareedna waxay jeclaan jirtay inay sameeydo sidaan oo kale sidoo kale duqliisa waa qof aad iyo aad u jecel caruurta yaryar inay la baashaasho dib ay soo bixaysaa waxaan iimaanaysaa xaafadeedii hore markaas alaabtan uu sheegaysa waxaan dheesamay ka gadaa laakiin qiimaha isku fahmuwaanaan waxaan aqoonsan inay soo tagaysa xariifka diriskeeda ay wuxuu ku dhahay istaagna ka gada diyaar ayaan u ahay laakiin iyadoo ma sheegayso isla markiina hal gaari habeenkii soo carraysa waxaan iimaanaysaa xaafadeedii kale halkan waraaqad dhigaysa waliba waraaqad ay ku qoran tahay family-ga ima soo raadinin miya sidoo kale ay ku soo qoraysaa duunkan weynta magaalkii aan iska galaya inkastoo Liisa jirkeeda uu yahay 20 jir laakiin maskaxdeedu weli waxay shaqeynaysaa sida 70 jirtii oo kale meeshan iskaga noosha Liisa sidoo kale meeshan iska imaada si ay ula qabsato farxad asxaabteeda kale ee duqooshinka ah ka duqdan kale ku caajisa kadib mikrofoonka ka qaadanaysaa dadka meesha joogan oo codkeeda kale sababtoo waxay leedahay cod gabar aad iyo aad u yar ayagoo idilna waxay la cajabayaan codkan sidaan u macaan gabadhan iska leh odayaashii oo idilna waxay u qaadayaan dareen qoftaani sababtoo waa gabar aad iyo aad u qurux badan aadna u yar habriid duqyaalka oo meesha jooga idilna ay kama seerayaan sidoo kale waxa meesha imaanaya kan helaya wiilka ay u tahay ayada sidoo kale waxa imaanaya wiilkan oo ayada ay dhashay Liisa markaan in degtag oo kaliya ayaa ka soo haray sababtoo waxay aragtay caruurteeda ayadan markaan waxay ka cabsanaysaa inuu aqoonsado wiilka ay u tahay ayada laakiin isaga uu bakeelay wuuna soo raacay ayada